waddanka Hindiya magaalada Bombay la yiraahdo qisa cajiib ka dhacday bari nin ducaada reer Bombay baa noo sheegay nin Hinduus oo gaal oo mushrika oo waddanka Hindiya u dhashay laakiin Australia ku nool ayaa ninkan muslimkee ganacsadaha xiriir baa ka dhaxeeyo badeecada uu ka iibsan jiray marmar maraakiibtu u saari jiray badeecad baa jiray Hindiya laga helo Australia aan laga helin badeecadahaas markaa intuu ka soo dalbado ayuu lacagtana banka ugu soo shubi jiray isaguna ama cargo diyaarad buu u saari jiray ama container marka buu u saari jiray ninkii maalqabeenka ahaa reer Australia ahaa Hindiga gaalka ahaa isagii inantiisii oo jaamiciyada iyo islaantiisii baa Bombay yimid ninkii taajirka ee muslimka marka la kulmeen markaas badeecad buu iibsaday wuxuu yiri badeecadan tan adaan ka iibsaday ii soo saar diyaaradda cargo-ga lacagtina waa tan alaabtana aniga gaar meel kale uga soo iibsaday iigu darbu ka yiri markaas uu yiri waayadan qaraxyo iyo adduunka waa la cabsoodaa oo qof walba waxa diyaaradda u saaray uu iska eega badeecadan aniga adiga soo iibsatay de ana ka iibiyo waan garano ana u qoolan wixii ka yimaada laakiin tan adaa ila yimid maxaa ku jira ii sheeg markaas uu yiri wax kale kuma jiraan ilaahan caabudaya ku jiro halkan ka iibsaday buu yiri waa sanad yar oo san dheer oo gacmo badan oo Hindiya ay ku dhaxsanayaan oo lacag lagu iibiyo oo fara badan markaas uu culimada idaan soo weydiin in shariicadaydu ii saamaxayso in kale taajir markuu muslim yahay oo iimaan leeyahay tijaaradiisa wuxuu asaas uga dhigayaa ilaahay macrifadiisa tijaaradiisa wuxuu asaas uga dhigayaa maaragtaana inuu shariicada islaamka ku dhaqmo maxaa banaanayn maxay shariicadu banaanaysay maxaase ii banaanayn wuu soo noqday wuxuu yiri waxay culimadaydu igu yiraahdeen ma banaano haddaad u qaadid gaalnimadiisii baad ku caawisay waa khatar mana banaano shariicada islaamka ma ogolo waana xadiis saxiix oo nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam uu sheegay uu yahay ninkii war inta oo sanaan saaxiiba ahaynoon wada mucaamaloonay maxaad igu qaadi weyday ma qaadayo wax kale aniga wax kale oo xalaal ah hadaad ii keento waan ku saaray diyaaradda laakiin kan ma qaadayo diinteedana ii saamaxaynan ku qaado gabadhiisiiba marka inantii uu dhalay baa fikiraysa waa gabadh jaamiciyada habeenkii iyadii aabaheedii hooyadeed hoteelkii markay tageen ayay tiri aabo ninkan muslimka inta oo sanad la mucaamaloonaysi muxuu inoogu qaadi waayay bay tiri ilaahayna aabo waa diintiisa ogolayna naga daabuudi aaba raay baan ka qabaa bay tiri halka raay baan ka leeyahay raaygan ka leeyahay waxa weeyaan bahalkan aan iibsanay marka koobaad isagii intuu socdo Australia tagi kari maayo ma socon kara laba lacag iska bixin kari maayo diyaaradda kursi fadhiisan kari maayo saddex adigii waxaad iga dhaadhicisay oo hooyaday ka dhaadhicisay oo adiga ka dhaadhicsanna baahideena kana daboolaya markay dhibaatana qabatay xambarino waxay tiri ani arintaasi maskaxdeeda ma galaysay tiri war kala keen فكرت ninkii muslimkii baa telefonkiisa qabsatay way la hadashay waxay tiri bari tolina ku arkaan doonaya waayo waa inantii odayga caankaas ee uu dhalay weeyaan maanta ku timid ee aabaheed la socotay ii kale dalbo marka ku martay qaaday markay u timid wuxuu marka islaantiisii buu soo kaxaystay oo xijaaban oo gabadh mutadayinada markaas uu soo gashay hoteelkii halka gabadhii fadhiisatay waxay tiri anu adigan kula ballamay ruuxan kale kula fadhida maxay tahay wuxuu yiri ruuxan kale waa xaaskaygii diintayda islaamku ima ogolaanayso inaan adiga kula kaliyoobo limaada waan ku geeyaa adiga mahram badita mahram imati mahram badu baahanta nabi maxamed baa yiri ninna naaga ajaaniba inuu san la kaliyoobin illa mahramkayga la jooga mooyaane alayhi salatu wasalaam taana horta qacbay ku tiri qalbigeedii ilaa diin bal ya meesha taale waxay tiri su'aal baan ku weydiinayaa diintaadu adiga waa maxay waa islaam iyaad aaminsan tahay sheeg Allah bana aaminsan la tudrikuhu al-absar wa huwa
yudriku al-absaar cirka abuuray dhulka abuuray marka halkii fursad waxay u noqotay inuu ninkii gabadhii dacwada siiyo inay iyadii halkii ku islaamto inay hoteelkii ku noqoto inay hooyadeedii aabaheed ay ka dhaadhicisay diinta islaamka oo labadii waalidoo da'wa weyn ay ku qancaan inay diinta islaamka soo galaan hidaayada marka ayaa hay Allah nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri quraysh adeer anu kalmad baan la rabaa inay mar kaliya yiraahdaan hadday kalmada ay yiraahdaan carab oo dhan madax bay u noqonayaan carab ajam oo dhan jizyada ka qaadayaan kalmadaasi waa maxay wala ilaaha illa allah aba jahl basaraka wuxuu yiri aj'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab 360 ilaahun caabudaynay ayaa baahidayadii dabooli karile maxamed ma waxa uu leeyahay mid kaliya caabuda war inaga kiciye buuri meesha ilaahayadeena cibaadadoodana ha ku sabirne muraadka maxamed uu kaleeyahay diintiisan ku daynayo ka hadhaya ma inaga mariyo bay dhaadeen markay ka dareereen ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam isagii adeerkii baas ku soo hadhay markaasuu Abu Talib ayaa yiri adeer hadal xun kumaad orana waa sidee ma inta bay ka didayaan markaasuu adeer adigu kalmada mar ii dhabuuri qiyaamaha ku marxaati furee hal marun adigu ii dhabuuri kalmadaas maalin kasta waa u bandhigaya adeerkii dacwada sakaraadkii markuu qabtay ayaa la yiri adeerka Abu Talib baa xanuunsan oo jiifo oo dhacay markaa buu nabigu isku taagay calayhi salaatu wassalaam kolkuu u soo galay Abu Talib wuxuu arkay dhinaca waxa ka fadhiya Abu Jahl yaa uga soo horeeyay Abu Jahl baa uga soo horeeyay siraac xaq iyo baadilku wasgarab socdaan la socdo markaa buu nabigu u dhawaaday adeerkii ammi adeer ha kalimatan uhaaju laka biha inda Allah yawm al-qiyamah maalinka qiyaamaha ku marxaati fure oo han ku shafaacad qaade hal marun kalmada aniga maqashigu ka yiri la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam markaasuu eegay Abu Jahl buu eegay Abu Jahl baa ku yiri atarghabu an millati Abd al-Muttalib ya Abu Talib ma millati Abd al-Muttalib baad maanta ka weecanaysaa diintii Abu Yashin intood ka tagto diintan cusub ee Muhammad uu la yimiday miyaad rumaynaysaa oo raacaysaa oo aamusa hadana nabiga soo yarjiidiyay sallallahu alayhi wasallam adeer kalmada mar labaad igu celi buu keenay mar labaad hadana waa aamusa hadana Abu Jahl baa soo jeediyay marka uu dambeysay Abu Talib wuxuu yiri ala millati Abd al-Muttalib baan ku dhintay Muhammad oo iska keedaa buu ka yiri إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إنك لا تهدي من أحببت كذا أدقوا جعلات النبي قال له ما هذين كريس دلالة أدقوا لا ده الدلالة هداية أدقوا لا ده وحويان inaad dadka khayrka aad ugu yeedhid inaad kalmada u bandhigtid inaad u nasteexaysid inaad u damqatid inaad diinta u sheegtid waa shaqadaada adiga weeyaan laakiin qulubtooda annaka haynaba ilaahay leeyahay kaan doona qalbigiisa annaka nuurka iyo hidaayada qalbigiisa galinayna kaad jeclaata adigu ma hadaynaysid marka Abu Talib oo Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam adeerkiina هداية النصيب وموسن يلن سلمان وفارسين إلهي وسوحدي أبو لهب والنبي محمد أديرك اللحم ينا هداية النصيب ومو يلن بلال الحبشين إلهي تبارك وتعالى وسوحدي يهدي من يشاء كودون إلهي سقهدي كودون marka ilaahay asmaadiisa waxa kamid al-hadi hanuuniye al-hafid wa asmaada ilaahay ilaaliye saga ku ilaalin sidoo doono kugu ilaalin meeshu doono kugu ilaalin goortu doono ku ilaalin bila asbaab
sagaal iyo sagaashan magaca ilaahay ee nabi maxamed uu yiri magacda wanaagsan ilaahay uu leeyahay ku alla baryo baahidiina ku weydiista bay culimadu leeyihiin sagaal iyo sagaashan magac bahe magac walba macna gooni u xambaarsan yahay magac walba macna gooni ayuu xambaarsan yahay